بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان انت إضاوانيسا أما يدقيسانيسا ومدحي ورباهنتا برها بالشدة أما فينكي برها بالشدة بلوين تهبر قدير نبضون عبد القادر محمد حسنوي وعن ربا ما انت إنان اسدول تاغو أنا وقت بدن هيسن وكما محمد داهر عبدالله قاشان لصر محمد داهر عبدالله سرقال سرق oo ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed waxaan isdul istaagi doonaa anoo soo koobaya kana cudur daaranaya in aan waqti badan haysan waxaan soo koobi doonaa dhaqanka iyo dabeecadaha iyo matalaada sida uga soo baxay Maxamed Daahir Cabdulle gaashaan la sare Maxamed Daahir Cabdulle Maxamed Daahir Cabdulle waa sargaal sare oo ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed waxaana uu xukumaa qayb kamid ah ciidamada booliska Soomaaliyeed ayuu xukumaa Maxamed Daahir Cabdulle Maxamed Daahir Cabdulle waxa uu la soo shaqeeyay dawlado dalka soo maray sida dawladii ku meel gaarka ahayd ee Sheekh Shariif Sheekh Ahmed dawladii ku xigtay oo madaxda ka ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha hadda talada haya dawladii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dawladan hadda jirta ee Xasan Sheekh Maxamuud Maxamed Daahir Cabdulle waxa uu ku caan baxay in uu san mucaaradin dawlad kasta oo dalka timaada waxaana lagu tilmaamay inuu kamid yahay shakhsiyaadka farakutiriska ee muxaafidka ah ee dawlad kasta la shaqeeya waxayna taasi muujinaysaa Maxamed inuu yahay Maxamed Daahir nin muwaadin ah oo aan mucaarad ahayn jecelna qarannimada wadajirka iyo horumarka dawladnimada okay Maxamed Daahir Cabdulle beesha habar gidig ragga ugu jira dawladda federaalka ah ee labada gole ugu jira ama dawladda ugu jira waxa uu uga duwan yahay Maxamed Daahir waa nin ka soo baxay matalaadii rasmiga ahayd ee beesha uu ka dhashay markaan saas leeyahay ulama jeedo Maxamed Daahir Cabdulle inuu yahay nin qabyaaladaysta ah oo habar gidir kaliya u dagaalama maya mitaal ahaan dadkiisu markay raadiyaan Maxamed Daahir oo ay u tagaan haddii ay qaldan yihiin waa uu qabtaa hadday gar leeyihiin waa uu heliyaa waa nin kara qofkan waa laga qaldan yahay sharcigaana u fasaxaya يعني waxa uu dadkiisa ugu doodaa nidaam sharci ah Maxamed Daahir Cabdulle been idin sheegi maayo gabar 10 jir ah oo habar gidira haday wacdo waa ay helaysaa telefoonka ka qabanay haday raadisana waa ay helaysaa hadafka ay ku socotaa haduu sharci yahay oo laga qaldan yahay waa nin kara oo dhihi kara qofkan waa laga qaldan yahay nidaamka dawladnimadana lagu ma dulmi karo haddii ay qaldan taana waa nin dhihi kara nidaamka ku socotaa waa isdiidayaan nidaamka dawliga ah sidaas darteed waxaas baa ka qaldan ee dib u laabo yani wuxuu ku socdaa wadadii ahayd walaalka haduu gar leeyahay oo heeli haduu gar daran yahay oo heeli haduu gar leeyahay gartaye haduu gar daran yahay oo heeliya gardarada ka qabo wadadaas uu ku socdaa Maxamed Daahir oo waafaqsan shariicada islaamka iyo qawaaniinta caalamiga ah in walaalka haddii laga gar daran yahay oo la dulminayo aad u heeliso kuwa dulminayana aad ka dhiciso haddii uu haduu gar daran yahay aad ka qabato gardarada oo tira ka joog nidaamkaas ku dhaqmaa Maxamed Daahir Cabdulle gaashaan la sare Maxamed Daahir Cabdulle waxa uu xukumaa qayb kamid ah ciidamada booliska Soomaaliya waxa ka kooban Soomaali oo dhan ayay ka kooban yihiin rag kamid ah ciidamadaas oo aan ku beelahayn Maxamed Daahir Cabdulle la sheekaystay waxa ii sheegeen inuu yahay sargaalka ugu daacadsan uguna nadiifsan Maxamed Daahir Cabdulle saraakiisha booliska Soomaaliyeed waxayna sheegeen in wiilka ka yimid degmada uu ka soo jeedo Maxamed Daahir ee Cadaado iyo wiilka ka yimid Baaya Balkool uu isku si ugu xaqsooro isku sina u qaabilo isku sina ugu roon yahay waa nin ku dhex jira Maxamed Daahir Cabdulle bulshada uu u shaqaynayo iyo ciidamada qaybahooda kala duwan waana nin saaxiib la ah qaybaha bulshada kala duwan sida odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka siyaasiyiinta iyo dhammaan dadka uu ka dhashay oo dhan Maxamed Daahir Cabdulle nin isku si ugu dhex jira weey ma ahan Maxamed Daahir Cabdulle nin isla weyn waana nin la fariista teetalku raba haado maqaanku saraba ha ahaade qof kasta oo asaga danaynaya ama doonaya nin la fariista weey asagoo ku qaabilaya xushmad iyo qaymaynaya qofkaas maadaama yahay qof asaga u socda Maxamed Daahir Cabdulle waa nin ay ku weyn tahay qarannimada Soomaaliya waxaana taas daliil u ah anigoo idin sheegay inuusan ahayn nin mucaarada ama mucaaradi jiray intaas ayaan kusoo koobayaa taariikhda inta aan ka haya hadda Maxamed Daahir Cabdulle gaashaan la sare Maxamed Daahir Cabdulle